waxaad ogaataan dadku waqti yar baan leenahay qof walbana ajashiisu ku dhimanaya laakiin qofka waxaa asala inuu isagu marka hore isxisaabiyo intuuna xisaabta kala gelin walaalkeen allaha u naxariisto inteennana waan garanaynaa muxsin buu ahaa qof walba wax tarayay shalay haddaan u baahnayn maanta isagaa inoo baahan waxa ugu horreeya aan samaynayna waxay tahay horta bari in la cafiyo waxbaa lagu jiraa dadka waxbaa ka dhexeeya carab iyo daan baa ugu dhow isqoomaan marka hore ilaahay dartii inaanu cafino wixii wax adduunyaha ku sheeganaya qaan sheeganayaan ehel baa jooga mas-uuliyiin baa joogta way soo gudbisanayaan intaan markaan ka tago waxaad ogaataan waxayna sugayaa waa qabrigaas aan u shaqaysanna isaga shaqada maanta inuu ugu muhiimsan waxa weeyaan qof walba marka aad subaxaad marka qabriga lagu geliyo adiga camalkaaga bay noqonaysaa waad ogtiin xadiiska rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qofku markuu dhinto camalkiisa u go'a saddex waa ku soo hadhaysa maxay noqonayaan saddexdaas waa walid saalix oo u soo duceeya oo muxuu noqonayaa marka hore haddaad tarbiyadiisa hagaajiso marka dambe adigu wax ku taraya iyo sadaqa jaariya maanta ehelkiisa iyo wiilkiisa iyo carruurtiisa iyo hooyadii iyo kulliga walaalkii qof muxuu tari karaa geed yarood abuurtaa uga muhiimsan wax walbaad samayso masaajidda dhagax ugu dartaa asaloa iyo cilmi naafica intaynala gudboona maanta aan samayn karnaay waa inaan ilaahay u barino oo aan cafino midnimadu ka shaqaynayay waan garanaynaa inta dhibaato aan soo doorka uu cabdiqaadir ku lahaa marxuumkaas anaa garanaya maanta qof walba anaa uga dhowaa anaa garanaya wuxuu ka tegey marka aan iscafino ilaahayna aan barino isagana ilaahay aanu